بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكت المامية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله درسي يقول لبدنا آيات بكوري دونا. آيات كان وحي كورميان قفك مسلم كاه ورب سبحانه وتعالى وتلماميه inuu fiiriyo ama se qorsheeyo mustaqbalkiisa soo socda. waxay isweydiin leh qof haddaad tahay, qoys haddaad tahay, bulsho iyo ummad haddaynu nahay, mid kastaba ha noqotee inaynu isweydiinno ummaddeennu xagay u socotaa. almustaqbal alqariib walbaciid, mustaqbalkeenna dhow iyo keenna durugsan labaduba xagaynu soconna. ما اتجاه صحيحين وصعنا أم ننتظر المجهول؟ مسه وحن بين سجينا وحن مقان غيبك وحا ونقضؤون وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء نكالين مجرته حيث إنه لشدو أهدافته أما غايات كأنه ربنين إنه تحقيقشنه وصمينه قولسك أما himilooyinka aynu rabno inaynu gaadhnaa maxay yihiin? maxay tahay ahdaafteena dheere? maxaa lagu qiyaasaa? ma miqyaasu dalik inaynu hore u soconno iyo inaynu dib u soconno maxaynu ku qiyaasnaa? see loo qiimaynaya? bulsho ahaan markaynu eegno waxaad moodaa waddankeena iyo dadkeenu inuu fawdo badan ku jiro. bulshadaada maxaad u qorshaysay? dunida aynu maanta ku nool lahay waliba culuum almustaqbal waxa la yidhaahdaa maanta aada loo adeegsadaa, oo xataa culammada qaarkood kutubtooda ku tilmaamayaan. inay min furuud alkifaaya ay ku sheegaanba. waa in dadku uu istishraafo amase uu odoroso mustaqbalka soo socda isagoo ku eegaya awoodiisa maanta uu hayo iyo taariikhdiisa tagtay iyo soo jireenkiisu wuxuu yahay iyo daaqada bulshadiisa iyo dadkiisu ay leeyihiin iyo waxa la tawaqucayo ama la filayo inay dhacaan. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay bini aadamku mararka qaarkood mustaqbalka siduu u arko. ayawaddu axadukum أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إلهي الصورة بوينو صوري شيغيسا متكين ميو جعليهي isagoo beer iyo baraadhe iyo barwaaqo ku jira, beer isku baxday oo webiyaal hoos marayaan oo midhale oo wax walba, isna uu soo tamargabayo uu gaboobay. dul yaryarna uu dhalay, caruur yaryar aan markaa waxba qabsan karin. dabeetana duufaan haleelo, icsaar uu haleelo ay gubato. qofkaasi suuradda baan laynoo sawirayaa muxuu filayaa? mustaqbal madow buu arkayaa. isaga tamari kuma hadhin, kuwuu korinayay waa yaryar yihiin, beertii waa gubatay. sawirkaasi siduu egyaa ilaahayna hordhigay subxaanahu wa tacaala. kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahay: kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun. sidaasoo kale baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka idinku caddaynaya lacallakum tatafakkaruun, si aa u fakartaan وحض يموتان. أيها الأحبة، وحين لنا الدين تعالى ينسد سبحانه وتعالى وحي كسا ليسنتي على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى.
inay dadku in badan qorsheeyaan noloshooda timaadada ee soo socota inaanay boos ku lahayn nolosha qofka muslimka fawdada anarki maamul la'aanta iyo iska daba wareega iyo bariba waxay noqon doontaa siday maanta ahayd inaad u fakarto haddaad u fiirsatana noloshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaabkaas bay u dhisnay مثال واحد هدينو تلمامنو هجردي نبي محمد عليه الصلاة والسلام علماء السيرة مركي هجرة إنو آخرين أيام إم السنبي إنو الشيغان قرشة ونبي قدقي وأهبلانكي وكنت تلقى لي مركو هجرده ماشو ماري لها سيدو عدو وقردو من لها سيدو الراد قدان لها ودادو قادي لها عدة هقامين إيسا عدة أن لغا شاكينين إنو دليل كردكتو الراحلات كيفولي لها يرين اي ديار صدان وقت ان لفيلينين اي بحان ميل ان للرجين اي قبطان اي وكعان بورلي اي مران سي وراد قطان يعني مركز دراسيس النبي عليه الصلاة والسلام هجرة ديسي وحيكوت الماميسا إن لينبر التشريع يدا تاسي عكسي وتي مثلا إسراقي الإسراء والمعراج نبي محمد عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج وحاها تشريف هي التعظيم هي التسلية وينين إلهي والنبي وينين أيي لسميرسين أيي بلايين ما كيلومتر السدول بلايين كيلومتر بلغو قياس كرين أي النبي محمد إلهي كحي مكة وجي بيت المقدس ولا قد الميو عرك اللقبتسيي ولا سوء علي ما هم مسألة الله قلت لك علينا إنه كجد ضيانه أما أود إنكم أصاب سنة لكن شن بقولك كيلومترين كي يرسقوا صعون هي وأما كي مدينة أنت ولا حيسة ولس than 500 كيلومترز شن بقولك كيلومتر بكي يرطي يا إلهي سبحانه وتعالى نبي جوح اللجوء إلهامي خطتي وهلك كوجاري لها يا أنت أي قاعدتي يا مدافر يا طبعا عشاء للوين يي أو حصل ربا لجمري تسبة تخطيط كده لي تنوال للتشريع تهرى للتشريف بيهيد إسراء يا معراج يا كوكني أما تاني وللتشريع ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحين دريما إن قرشه سودجي يسيد وهاي وحي يقولها جاي حتى عالم كي وحك الصعدة سيد يقول السعودين ودلبدي دولدود ووينا يدقالكي كدح السعودية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوغور رميو iyo ogaalka uu nabigu ogaa calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ardil xabasha inuu dareemaya ama se warkaa uu hayay ayna xaggani ka cadaalad badantay labadan dowladood iyo intaan agagaarka joogto oo dhan dowladdaasi ka tirsan dhulka xabashidu inay ka cadaalad badantay waxaasoo dhamme waa wax tilmaamaya inaanay muslimiintii hore dad ghaafiliina ahayn ama dad iska socda ama dad uun suga mustaqbalku waxa uu noqonayo bale xadiis qaarkood baa waxay noo tilmaamayaan waxyaabaha wax lagu qiimeeyo markaad mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxa ka mid ah al-ihsaa'iyaat statistics data in la helo tira koobiyo awoodaada xoogaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorsheynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato إلى حد النبي عليه عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كيالا رواية مسلم أحسوا لي كم يلفظ الإسلام إيسو تركوه بل أنت قف مسلم تشوكت مقالة مدينة أما رواية إمام البخاري اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس تذكر أنت كل واغضي إسلام إيسو قرأوا النبي عليه الصلاة والسلام وحلاني مركها لا بد من تخطيط لا بد قرشين إن نهله لا بد سينولش إنه فوضى وقبحضة سيبا ومدى الصوماليات ومدى أنا أنت بدن ترد وجرين صادال أنت مستقبل كي يوحي سجيان إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وركوا إيمانك لغاها لا يوم اتقوا الله لك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحينا في أردقتي وحي أهرو مرستي وحي أردتيستي سودي تدا ما تغانين
caanaha waa la dhiteeyaa dee si berri loo lulo waa lagu sii talagalaa berri si loo luli karo inay maanta dhita noqoto waxaa leeleynayay waxaad u dhitaysatay barraad lulane waxaad lulanaysaa waxay noqonayaan fiiri waltandur nafsun maa qadamat liqad haddaba uga warrami maayo mowduuca kan sida idaariyiintu uga warramaan culamaa ilidaara iyo qaabkay uga warrami maayo laakiin waxaan uga warramayaa inaanina tambiihiye bes iyo waxyaabaha asalka aynu u baahanay inaynu isticmaalno ugu horrayn ilaahay wuxuu ku baraarujiyo inoogu bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah markaasaa haddana la yidhi wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun waltandur nafsun amarkaa labada hareeroodba waxa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeenna iyo waxaynu mustaqbalka qorshaynayno dhammi waa inaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan waa inaynu cala alhuda inagoo ilaahay ka cabsanayna waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horrayn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay noloshu fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecelya uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaah yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday ciddii ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisiiyo ka dhowrsata naartiisa in alle dadka u fudaydinayo waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto qudhan lagama hadlee waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbeddel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay riskiga ama caqabaadka kaa hor imanaya qaabka loo daweeya inay ka mid tahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alle ka dhowrsata in alle subxaana wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa awgeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu dadka maanta in badanoo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta 5 sane soo socda maxaa la qaban 10 sane soo socda maxaa la qaban 20 sane soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku bayskarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaana wa tacaala toojka ku wiifiyo sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaa ka dhowrsataan oo la ka cabsigu uu yahay main pointkiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin yeelayaa furqaan bayna alxaqi waalbaatil waxaa xaq iyo baatil ku kala socdaan ama waxaa ku kala socdaan sawaabka iyo maxay iyo khata'a ama waxaa ku kala socdaan sharka iyo khayrka baa helaysaan baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii wattaquu llaha waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay kaalmadiiyo inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro idan koo waxaan leenahay ilaahay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaa
qodobka labaad aan tilmaamaya wuxuu yahay khutadka dadka muslimiinta ay degayaan hadduu qof yahay iyo hadduu ka badan yahayba waa inuu noqdaa maxay بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان ترقبا وحي قوان صدرين يجوا أوصية ونقضاء إن يهينون هداني يجوا كجردادين إن أظهروا مرينين وحنا كما تشيران دولة ده يرير يدك مساكين تأيي عين كاني وحي إن بدن إيغان المجتمع الدولي محوينا قابها دولة وين سيدي قرشيه النوار كيا إلهي وحوينا تلمامية الله كعبصة ونقرشاي نبينا وحولي احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز كد دال وحك وأنفعية في الدنيا والآخرة إلهينا كالميسو وربي هالنغض عدة كتير سنة هنا عاجزين أي لا تعتمد على الأسباب وتغفل عن ربك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كوا هو عننا دنكودا markaynu masaladan ka hadlayno ugu horey waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxaynu joognaa meel si loo gaadho cid waliba maslaxadeeda iyo hadafkeeda awooddeeda oo dhan ay isticmaasho waxay dhahdaan kuwa xoogga badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkoodu inuu ku xidhan yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka saa daraaddeed qorshahooda waxaa ka mid ah inaad adigu weligaa horumarin weligaa inaad horumarin baa qorshahooda ka mid ah walidaalik ayaa hay-aadkooda dhabta ahi waxay fuliyaan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha siyaasatu takhriib subversion in la qaso ummadaha inta kale idan waxaan leenahay meel baynu fadhinaa aynu rabno inaynu horumar samayno ama ummad noqonno ama dad noqonno ama dowlad noqonno laakiin waxaa kugu xeeran cid aan ogolayn inaad waxaasi samayso subversionku almukhaabaraat alcaalamiya waa waxa ugu badan ee loo dhigo saa ummad loo hagardaameeyo saa dad loo dumiyo waxay yidhahdaan ummad kastoo saddex shay loo sameeyaa horumar ka dheer waa halkeeday nagaanaysaa saddexda shay waa maxay waxay yidhahdaan ixbaad demoralization in dadka lagu qanciyo inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adigu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building soomaaliya imka 30 sannadood waxaa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa laydin dhisayaa awooddiina la dhisayaa kuwa dowladda yar haysta iqtisaadiyaadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa iqtisaad siyaaxa waa dhaqaalaha ku salaysan bay yidhaahdaan maxaa la yidhahaa tourism siyaaxa waddankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina ha dilina kan ha samay iyagu intoodii way mariyeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaxada waxay yidhahdaan in economics marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaala burburka uu ku dhaco bini aadamka marka dhaqaala burbur bilaabmo bal wadanadan islaamiga u fiirso qoloba waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxa ka shaqayso waa dhaqaala burbur sidiisa u yaala dunida waxay yidhahdaan ma horumaro ummadaan industrial noqonin ee casrigaynu noolay waxay
waxay yidhahdaan marka ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo, in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin, inaad dambayso, inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adigu hore u socon karin. ka labaad waxay yidhaahdaan weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya? maya, dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaalayahanaa oo masalada ka fakara oo wadannada kale tala bixinta siiyaa sidii loo dumin lahaa. waa gruub dhisan, maaha wax theory-a, waa gruub dhisan. waa kuwa ka warramayoo kale Convention of Economic Hitman ninkii qorayoo kale oo ka mid aha gruubada tan. bale waxaan idiin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jiraan, dhaqaalayahano Soomaaliyeed inay ka mid yihiin. markaynu taas soo dhaafno waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen Asia iyo Numur Sabca, dowladii la lahaa waa Tigerska ama shabeellada toddobada ah. hal dowlada baa tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday. intii taladoodii aqbashay waa la waayay. Malaysia qura diiday tala bixintii Australia bixinayay, way guuleysatay, mushkiladii way ka baxday. lixdii qaatayna way jabeen. shayga labaad ay sameeyaan ee subversion-ka ahi waxay yidhahdaan waa zaczacatu istiqraar, destabilization, in waddanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin. dadka badh baa u haysto moodaya dowladaha waaweynay inaynu degno, inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado, inay rabaan in caynkan ma jirto. waxay u socdaan inaad weligaa degin. dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay? albandi saabic, bandiga toddobaad ee United Nationska xeerkiisa. bandu saabic macnihiisu waa maxay? waa qofku isma maamuli karee ha la maamulo. qofku isma maamuli karee. ilmaha yare carruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa? xoolihiisa ma maamulan kare, wuxuu u baahan yahay maxay? wasiy, cid maamusha oo meel gaadhsiisa. bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa. askar ma yeelan karaan, way isdilayaane, qoryo ayaan laga iibinin. dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan, cid kale ha u ilaaliso. wax kastaa soo qabo, waxaa ma samayn kartid, waxaa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaado mooyaane. adiga ciidan kale in lagu duldhigo wax kan. waxani ma aha jacayl lagu qabo, ee waa destabilization. waa inaad ku jirto inaad weligaa soo kicin. Soomaaliya meelaha yare nabaduu ka jiraan waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin, iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn, kolay kama madhnee, ayaa inta nabadu ka jirto. qodobka saddexaad ee subversion theory-gu uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization, tatbiic al-azma. qofku marka dambe balaayada waa inuu u arkaa inay nolosha ka mid tahay, halkay Soomaalida la gaadhsiiyey weeyaan. qofka Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko. maalinta qarax yare dhacaw isdhaa wallaahi dhib baa soo korodhay, laakiin wuu la qabsaday, wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta. dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization, qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay. waxaanaan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo, waa waxay istaraatiijiyaad ilcaalam ku dhigaan. maalan waxaa jira buugu qoray nin Chinese 2500 sannadood ka hor noolaa. Sun Tzu baa la yidhaahdaa, oo filosof generaal la ahaa. buuggiisu waa weedho koobkooban, waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo koobkooban inuu yahay. culamada istaraatiijiyada dunida daraasaysoo dhan baa loo dhigaa, militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa. waa kalimaad koobkooban oo ninka kani markaa waa nin filosof ah, fanniga istaraatiijigana looga dambeeyo. waxa uu yidhaahdaa in ikhdaac alcadow min duuni qitaalin huwa arfacu imtiyaaz buu yidhaha. cadowgaa inaad jabiso oo uu ku hoos yimaado adigoo aan la diririni waa heerka ugu sarraysay la gaadha buu yidhi. waalcamalu alcaskariy huwa aqalu turuqi jawdatan liikhdaaci alcadowi buu yidhaha. militarily inaad cid u jabisaana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiya buu leeyahy. yacni inaad
ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba waa farsamada ugu liidata laakiin farsamada u sarreysa waa maxay inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto ولذلك بوحو تلماما إن الأعظم بين القادة ليس المنتصر في 100 معركة بل ذلك الذي لا يحتاج إطلاقا إلى القتال لينتصر هل ييغا أما جيسيغا وين هجامية يلا قدام بينكرا ما هبو يدينك بقول قوبود قوليسته وان كان دقال بوبا هنسيو قوليسته ninkaan dagaalku u baahanin si uu guulaysto waxaan qadiyadan u tilmaamayaa markaa waxay tahay ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu ittaqullah waltandur nafsun maa qadamat lighad الاعتماد على نفسه هدينو yeelan kari weyno oo cid kale inoo dejiso khudadkeena iyo road mapka iyo meeshaynu marayno abid guulaysan maysid waxaad guulaysan kartaa iyo qura markaad adigu awoodaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guulaysan kartaa ama cid kale i wanaajinaysa warka gaaladoo dhan haddaan soo dhaafo ilaahay kitaabka qur-aanka ee soo degay 1400 sannadood wuxuu inagu leeyahay ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما تشعل رب ليه كوا قال ذا يا أهل الكتاب يا مشركين بس قدر كوا قال ذا ما تشعل أن ينزل عليكم من خير من ربكم حق علينا خير كهشان ما هينا يجو خير كفسيان حق الربين خير دين كي ما دام تشعل با إلهي سبحانه وتعالى إذا مدان تشعلين أنا حق الرب خير كهشو أيها يسقول لك يس خير كاسين يا هدات رميسته واتشبطا واحد كم تهاي كويل صوت المامي يجو ملا وقبياقي الصومالية دي شيء بعد ذا نبى كل الداية دالنا كابضانه وان دونين إناد هشان داينا بتكاي دتكون مودي دول وضر لشان وحد حصانين حنين الصومالية دون الصومالية دو كله تلمامي لكن حقيقة وحوية وقوة قوة بنوع كانوا فكرية محمد كاين الصارم خطة إنه دقي إنه وين بطانات كرر قلبات كأي وحلا الصعدون مكبحسن هذا إلهي بوحل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وركوي ما كان لقاها ليو ورلت لي يا لآن إذنك هين هيالني نبا إلهي لي ويدن لقوين يعني لا يألونكم خبالا ويدن فسهادين ينبر بكوشة markaasaadna waxaad leedahay khabiir ciddaa ka socota haddaad iimaansanayso khubaro badan baa leediin laakiin diirka cad nin ka mid ah culimmada soomaaliyeed jaamacadka reer galbeedkana ragga joogay waaweyn ka tirsan ayaa wuxuu yidhi waxaan imaaday sababa markaasaa waxaa iga soo horbaxay buu yidhi nin baa ii yeedhay cabdul xagga dambe nin iga yeedhayaan maqlay buu yidhi markaan eegayna waa nin cad oo ii yimo aduu ninkii way iswaraysteen ninku muxuu ahaa marka kan United Nationskii qaybo dhan buu haystaa laakiin markay xaggaa joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhiwalaha professorada waraaqa u kala qaada markaasaa ku yidhi buu yidhi waa saad xaggan ku heshay intuu diirka isqabtay buu yidhi dee aniga awowyaday baa ii shaqeeye adiga awowyadaa baan shaqaynin buu ku yidhi waa runtii aniga awowyaday baa ii shaqeeye يعني ما خبير لإني وحويا وين إيمان سوين إلهي وحين لا يودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحاد هيستو أدقو هيستين أدهروا مرتمربا وحنا ما تفايدين هذا الدين الآن وحوقا بقالاكو هشوح ما تفايدين إلهي وحين المام يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
أيها الأحبة علينا خطة إنه بهني لكن وين نقرنا مش إنه دقنا يوحى إنه ربنا إنه قبلنا إن أنا مال بنانا هينا وحي إنه دورنا أنت إنه دجنا إنه سعكرنا وحيد هذا أول مراحل التخريب بين هذا مركي نظام كودا استعمالان هل كلا قبل أبا بين هذا بربرين تأمضه أول مراحل التخريب هو إفساد الأخلاق بين هذا ودقن دورنته وأخلاق دول اللومياء استبك كوات marka aad la rabto qadaayadkan saddexda ee la rabo inay ummad lagu sifeeyo first step-ka la qaada waa in dadka moralskooda iyo akhlaaqdooda iyo ethicskooda iyo valueskooda inuu dhinto. That's why caalam islaami maanta war badan looga akhrinayo ah feminism group iyo gender iyo kuwa sagas ka waramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegay iyo waxaan loo wado dhami waa ifsaadu akhlaaqi الناس. واجرتا بني ادمكم ما اقبله بفطرته ان لا يراد حما السماء ما اقبله لكن حما شارب الهويه ادم ابليس كما ورنين جيت كان عنا دمبابتي محوكو يري شجره الخلد وملك لا يبلى ما كنت سيه قيد مركاد عنتو شجره الخلد هذيك waxa loo oranaya waa xuquuqda dumarka iyo waa xuquuqda caruurta iyo wax xuquuq la sheegay ma jiro xagaas ay ku dulmayeen xuquuqi meeshan ma taalo ee waxa weeyaan waa fasaadinta dumarka iyo fasaadinta caruurta iyo fasaadinta ummadda ayaa asala laakiin shaarka sare ee la huwinaya wuxuu yahay maxay erayaanad ka didaynin oo ah xuquuq rights marka laga warramo waxaad is leedahay dee wax macquul ah laba saddex midoo logic-ana la sheego laakiin ma rights ba ninbaa nin u tagaya ayaa human rights ka mid ah qof baa la bedelayaaba human rights ka mid ah يعني wax badan baa la inoo sheegaya laakiin waxa kale la inoogu sheegaya idan haddii akhlaaqdu ay lunto waa maraaxil fasaadku halku ka bilaabmo gaalada maanta joogta gaalka ugu weyn waa Richard Dawkins waa nabiyul ilhaad bay iyagu yidhaahdaan a prophet of atheism diin la'aanta nabigeeda bay ku sheegaan inuu yahay وأنك اللي قدر يوشن أيا وحليه من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أضد فاليو أخلاقيات أخلاق في عيني إن تكور رمي كرتو أدقوا أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فولا يا بولي هذا وكان لا إلهي ما شردتك ويريا وبوكي سجدوا لي يشبوك غريا حلي أخلاق لا هذا ربطو إن فاليو سون شاكتو وإن كنت أنت هيبوت المام يا محي religious ground هدارت هيسانين ما صورتك على هبوت المام يا أيها الأحبة هل أن مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لبتشر بإلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سيني نكد داله أجننا ولتنظر نفس علماء واحد هذا أنا أيضا قيبته هوري مركي اللي سفري تقوى أنت إيمانكم بالله يا أيها الذين آمنوا لكن مركي la isfarayay nolosha in la qorsheeyo wal tanzur nafsun ay kullu nafs nafiha eegtaba la yiri marka waxay yiraahdaan النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفها اكتب إلى ما قدمت الغد بري وحظهر مرصته الغد بريدا دوا نقون كرا بريدا دروك سنة ونقون كرا وحكاد دم بيودمي وبريتو وحكاد دم بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوقي هاي وحا صمين إنسان قصدك كاليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين نبر ربي وأوقي سبحانه وتعالى وحا هبال مركة الدنيا آخرة أيين هريا له الدنيا آخرة اسم الله
isku qiimana maaha, isku riski, isku mashkiladna maaha. taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorshaynayo keebaa mudnaanta leh. yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities baa kala jira, waxbaad kala horraysiinaysaa, siday u kala weyn yihiin u kala muhiimsan yihiin baad u kala horraysiinaysaa. qorshaheenna waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo. marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro. qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horreyn waa inuu ka fekeraa ummaddan say aakhiro naar uga baxsan lahayd, jannana u geli lahayd. waayo that's the most important thing, waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid. ثانيا baad isweydiinaysaa taa sida loo gaadhayo ee adduunkan inta la joogana si aan loo kadeedmeyn ee adduunkana nolol fiican loogu noolaan lahaa. waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horeeyaa. weliba waxaa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimadda leh, ka adduunyana automatically inuu hagaagayo. waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa. aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay? adduunkan islaaxintiisa. tan baa masraca u ah. marka ugu horreyn waa inaynu aad uga fakarnaa. ilaahay wuxuu leeyahy yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu'in tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. qorshahaaga koowaad waa inuu ku jiraa wax kastoo aad samayso baraad la kulmaysaaye muxuu yahay jawaabtaadu. wax kastoo aad samayso adduunkan aad qabato, wax kastoo aad qabato, camal kastoo kaa soo fula baraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu. sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaru la talinaya, nin dhallinyaro ah. innagu dhallinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa? haddaad nin dhallinyaro aragto waxbaro, nin noqo, xoogso, guurso, shaqayso. soo kaa maaha taladeenna. talada ugu badanee dadku waa in dhow unbay dadku arkaan, maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad. indheer ma arkaan, in dhow bay arkaan. dadku waa wada indhow garad buu u badan yahay. waxaynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay? koowaad iskuul dhigo, jaamacad ka bax, guurso, nin noqo. taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay? waxay u baahantao dhan baad diyaar ula tahay. waxay u baahantao dhan baadu maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa. iskuulku gali lahaa kuu noqonayo, jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo, kharashku u baahnaan lahaa, waxaasoo dhan waad diyaarinaysaa. maxaad uga dan leedahay? nolosha dhow inuu guulaysto. berritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon. marka qorshahaagu wuxuu badayay ma diyaarinay. dhammaanteen isku keen dar, wadaad iyo wabiinba keen raaci. intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto. aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay? bal waxa kaleba ha dambeeyaan. maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo. war kuwa malcaamadooda waa qaali baa taagantay, laakiin waad ogashay jaamacadda dhabka kur inaad bixiso ee uu dhakhtarnimada ka baranayo. waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah buu la talinaya. garabka intuu ka dhirbahay xadiidkaa taqaaniin ee bukhaari ku yaalla, kun fi dunya kaannaka gariib aw cabiri sabiil. waa nin dhallinyaro ah, waryaa xoogso lama odhan oo nin noqo oo guurso oo kan sameeyo oo xoolo dhaqo. laakiin waxaa la ogyahay hadduu ta dambe fikraddeeda qabo tan hore inay islaaxayso. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariib. adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay? غريبة stranger, qof aan meesha u dhalanin. ama waxaad noqotaa maxay? oo caabiri sabiil, qof musaafira. qofkaas
انت وكفكره انه ماشا جوغا اما قرشه دجيو قرشه لغو دجي marka xoogaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dejinaysaa tadambaad u dejinaysaa inaad tadambe horeysiiso ayaa muhiima sawgeeda ayuha alxiba waxay leenahay noloshu khuda kama maaranto laabud min takhtiit lilmustaqbal laakiin takhtiitkeenu sawaa mid siyaasi ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid bulsheed ha noqdo oo ummadu leedahay ama adigu naftaadu aad leedahay ama qoyskaagu uu leeyahay wuxuu u baahan yahay inaad qorshayso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى يقول يا أيها الذين آمنوا كوي ما كان لها ليو وأنفسكم وأهليكم نارا ورنفتني أهلكي نبى النار كإلالية واللين أجيها إن تنسك تعله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى يقول تندوبة تعشين آخرنا أنت بدن وكتجيس لكن باش عكسية لا ينوت المامية تأد قرشها قوم مهم سلو دجيسه وراكو حينوت المامية دتك أقانت لمركي تلينيين حيت المامية نك قارون حوالها بدن صاحي لي محل ويدي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وروحي إلهي كسيي نرشا آخرة كبا ذكرى كبا دقوب كرادعه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أدون كان ديفت هذا إلا من باللي يعني بريورتي أمام مضنان توحى لما حي آخر للي أدون كاجا كرادعه وهالغياب إنه حلا واحد ورقص أد مقع يالتي قولي وين أد ست حلا ما ورقتين تقولي وين جنة كهشوا مسه قولي أنا تكون شرطة عديدية فكرتك هو هذا حوالي أنا تكبد شو حلينوت المامية آخر إن مضنان طيالة هو أحسن كما أحسن الله إليك أدون كانها إلا من بالي رسالة سبحانه وتعالى وكونا جينا ونا أكفل آية كحكته إلهي وحينا قدك يا سبحانه وتعالى كوا قرشها قرشك قد سنة يقوم مري qorshaha inuu sheegayna in leena priority-ga waa inuu aakhira yeelataa marka road map-ka aad marayso iyo waxa aad qorsheynayso kuwa iyagu taa dabarogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa nahyi wala takunu kalladina nasu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala يا عبسيدي سيا آخرة يا كاني قرشها وما جرته محا قرشها هذا كشرة الدون قن سيدا وحقر نقول لها ينبا كشرة سوقت بي إلهي وحين لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله كون محا كدعة فأنساهم أنفسهم تودا إلهي إلا وسيا بني آدم كمان تدوني دا كنا ولي ماتيريال بورسي كنا ولا شيء ورد ما هو ماتيريال مكور رمية لكن بني آدم كي ولا ديسكري لا يوصي بابا إياه كنا لا تشوفوا سيه هرو مرة يا بني آدم كنا محي وصيد دي بصعدة دقن هان أخلاق هان عقيدة هان ضدني ما هان وصيب بهلوبة يا بني آدم كدوري ده شوجا بني آدم كدوري ده شوجا دل دم باو حلو بابين ين يرو دقالين لقى هلا دن كلا يضان لقى لهاي شدال كيس الله بابا ما محوجا معدن وكو قرصون لسوقاته إذا وصيب بهلوبة يا marka wixii naftooda dari ugu jirta alla ilaa siiyay ama ay ka tageen faansaahum anfusahum ulaika humul faasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwe المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كوا مسألة كوسي فيسني كوا نفتود إلا با إلهينا تود إلا وسيي إلهي إلا با إلهينا نفتود إلا وسيي ومنافقين با إلهي تلمامية اليهود والنصارى في سورة المائدة آية صدحي تبنادي أفيرا تبنادي اسكحيقا قال أول با إلهي وحولي ونسوا حظا مما ذكروا
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلهي كتل مامية. إذن أيها الأحبة كوي قرشه آخر أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. دوني دا مركانو جوغني بي حسابتنا نوغو جرتي الله كعبسيبو مركانو ريرها يددك يقال جوغني أيانو إلهي كعبسنين سبحانه وتعالى سيدا وقدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كوي قرشها سكح ماضينا آخرة إلهي وحينا قلت المامي قالينا وردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نقول شيء ده ما وحور مرصده. أيها الأحبة waxaan filayaa waqtigii salaada inay gaadhay waan gabagabaynayaa haddii alla yidhaahdo qaybta kale waqti kale ka warrami. waxaa aayaadkan aan ku soo koobaya kow noloshu qorshe la'aan ma socoto. siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii baana ina baraya diintaana ina faraysa. ilaahayna wuxuu ina leeyahay war mustaqbalkiina eega. mustaqbalka in la eegaa waxay u baahan tahay baynu leenahay kow alla ka cabsi. laba waxay u baahan tahay baynu leenahay inaynu ku dadaallo maa yanfacuna fi dunya walaakhira waa inaan caajisin. saddex waxaynu u baahan tahay inaynu dunida waa la isluminayaaye riskigu wuu tiro badan yahay inaynu qorshe ka yeelanno saynu isaga awdi lahayn ama isaga joojin lahayn hadduu yahay naftaada iyo hadduu yahay qoyskaaga iyo hadduu yahay ummadaadaba riskigaa taagan saad isaga awdi lahayd. afar waxaynu u baahanay inaynu eegno mustaqbalka dheer inaynu mudnaanta koowaad siino. mustaqbalka dhow iyo mudnaantiisana haddaynu waqti hello waqti kaleynu ka warramay. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.